السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka nolosha jilayaashan ku soo qaadana macluumaadka naga qaadsan ku aadan jilayaasha oo aan dabcan kaga hadalno waxyaabaha kaamirada gadaashooda oo reality qusayaan inta badan barnaamijkan wuxuu qusayaa kaliya waxyaabaha reality ee kama hadalno waxaan shaashada ku daabano saadartay barnaamijkan waxyaabahan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona dagaalkii dabcan qaraara ee hadda ka hor dhaxmaray labada superstar ee Sanadol iyo Sharuqan maxaa ka dhashay iyo soo kale sababta isku qabteen aan fiirin doona qadiyad ugu weyn isku qabteen waxay filimkii Dar laakiin sida warbaahinta u dhigaan oo ku aadan dagaalka inuu marka hore Sharuqan iyo Sanadol ka bilowday ma ahan ee waxaan fiirin doonaa angalka ama xagasha kale ee sababtay dabcan Sanadol inuu ka xumaado waxyaabihii dhacay markii la sameeyay filimkii Dar sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin kale oo xiiso badan oo ay qayb ka tahay fiirin doono lamaanayaasha Bollywood iska dhex doorteen laakiin ugu dambeyntii jaceelkooda si burbur oo musiibo ku dhahan oo dabcan ku soo ilaaday iyo daawadayaasha qiimaha badan 3 sano ka hor gabadha lagu magacaabo Devika Padukone dhaawacii loo geystay filimkii Bamavad markii ay sameeynaysa ilaa iminka ma aysan iloobin balse markii wadan ku bilaawno legendary actress kaliyaasha Bollywood ka maqaamka sare ka gaareen waa labada mega star Sanadol iyo Sharuqan sanadii 1993 waxay isla sameeyeen filimkii Dar kani wuxuu noqday blockbuster weyn oo taariikhi ah sidoo kale tan waa filimka ugu weyn ee Hindi sameeya markii laga hadlaa fariinta filimada thrillerka ama dabcan qiyaanada ximbaarsan oo cabsida badan saadartay Dar waxaan ognay guushii uu gaaray amaantii uu ku wal Sharuqan iyo sidoo kale Sanadol oo hogaamiyay ka halka Juhi Jawle sidoo kale tan sanadii 93 mashruuca markii ay sameysay cirka sare ee gashalka director uu ka ah Yash Jabra oo geeriyooday waxaana dabcan markaas maalgelinaysa filimkan kambaniga weyn ee Yashad Films marka wuxuu ahaa complete project uu ahay oo laga filinaa guul lixaad inuu gaari karo wuxuuna soo baxay December 1993 Dar historical markii la blockbuster weyn laakiin waxa filimkan lagu xasuun doona mar walba controversy muranki ka dhashay hadaba marka koowaad maxaa sababa muranka filimkan inuu ka dhasho daawadayaasha qiimaha badan muranka waxaa sababay Sharuqan ku soo daristiisa ma ahan iyo magac uu ku yeesho saxaafada ku amaaneen maadaama libinta Sharuqan la sii doorkiisa sida aadka loogu amaano xumaanta ahay taasi ma aha muranka waxa keenay ee muranka waxa keenay qaabka scriptiga loo dhigay sheekada loo dhigay iyo waxyaabihii Sanadol lagu balamay in gabi ahaanba uu garab maray directorka lagu magacaabo Yash Jabra daawadayaasha qiimaha badan waxa la dhiibay horaantii 1992 filimkii Dar markaas oo Sanadol waa superstar Hindi ugu weynay sidoo kale tan uu ku jiray waqti dahabi ah sidoo kale tan uu ahaa dabcan atoore aan loo dhawaan karin xilligaasna Sanadol wuxuu fanki Hindi kala wareegay maqaam ahaan Amitabh Bachchan oo saaxada ka sii baxay Sanadol markuu dabcan la kulmay Yash Jabra waxa loo bandhigay hogaamiyaha filimka inuu yahay sidoo kale tan daawadayaasha qiimaha badan asiga doortay in Juhi Jawle atrishkooda ka noqoto sheekada Darna uu ka helay Sanadol waxa loo sheegay filimkan uu la sameyn doono Amir Khan oo xitaa doogista maalmo ka qayb qaatay laakiin ugu dambeyntii Amir Khan filimkan uu isaga baxay kadib markii scriptiga ama sheekada Amir Khan loo sheegay inuu san dabcan Sanadol la wadaagi karin feerka dabcan dagaalka labada dhaxmaray maadaama Sanadol hogaamiye uu yahay Amir Khan laadar uu yahay waxa loo diiday in labada gacan isku qaadaan oo Sanadol feerku gamo feer la mid ah Amir Khan uu gamo saadartay marka Amir Khan wuxuu dhahay hadii aan Sanadol aniga la tookeysaneen oo aan la xifaaltamay mashruucan waa isaga baxaya mashruucan uu isaga baxay Amir Khan laakiin ogaada daawadayaasha qanbad waxa recommendation loo sameeyay Salman Khan Dar inuu ku soo biro Salman Khan uu iska diiday si akhlaaq ku dheehan balse Salman Khan wuxuu ku wargeliyay kambaniga weyn Yashraaj gaar ahaan Yash Jabra in doorkaas uu ku haboon yahay Sharuqan oo dabcan ay toora firfircoon markaasna Bollywood ku soo biray Sharuqan isla markii waxa la xiriiriyay Yash Jabra Sharuqan filimka Dar wuxuu aqbalay asagoo xitaa aan sheekada filimka akhrin kadib markii loo sheegay in Sanadol iyo Yash Jabra uu la shaqeyn doono ninkaana magac raadis uu ahay sidoo kale tan waxa loo sheegay door xumaan inuu matali doono arkay doogista filimku qayb ka noqday sidoo kale tan daawadayaasha qanbada shaqada filimka Dar intee socotay Sanadol ma uusan dhibsan la shaqeynta Sharuqan aad ay isku fahmeen garabna uu siinaa laakiin waxa jirtay marxalad Sanadol uu sheegay inuu ka xumaado markii wax u sharxay Yash Jabra oo waliba ciilku Yash Jabra u qaada awgeed in jeeniskiisa uu dabcan iska jaajeexay sababta wuxuu sheegay Sanadol inuu Yash Jabra aad u tixgeliyo maadaama hadalku uu sheegay uu dhibsaday Sharuqan meesha uu joogo Sanadolna uusan fal celin karin wuxuu sameeyay labadiisa gacmood ay wuxuu gashtay jeeniska uu watay kadibna labadiisa gacmood iyo wuxuu isku qabanay jaabka surwaalka isku qabanay ilaa Sanadol wuxuu sheegay jaabka surwaalka iska jeexay Sanadol waxyaabaha dhibsada waxay tahay in asaga Yash Jabra ay ku doodeen wixii hore loogu balan wax ka duwan markii doobista filimka ay socotay Sanadol waxa loo sheegay dabcan in waxyaabaha qaar uusan aqbali karin loo sheegay waxa kamid ah tusaale ahaan oo kaleeto SRK oo filimka laadarka ah in looga dhigo doorkiisa qaab heroism ama atoore ah oo la boombooniyo Sanadol wuu diiday laakiin Yash Jabra wuxuu dhahay tan waa amarkayga ay qaado sidoo kale Sanadol waxyaabaha uu diiday waxa qayb ka ah heestii dabcan caanka ee hirgashay ee dabcan filimka ku jirto oo jaadis la siiyay oo Sanadol uu ka xumay oo waliba wuxuu dhahay nin laadar ah hees noocaas loo siinay waxa jirta marka waxyaabo badan oo uu ka soo horjeestay Tuhimeeri karan markii la siinay dabcan heeskaas Sanadol uu ka soo horjeestay Sharuqan waxay ahayd waxyaabo aan lagu balamin oo gadaar looga daray laakiin daawadayaasha qiimaha badan wuxuu yiraahday Sanadol qiyaanad u weynad waxa ugu sameeyay ka dhawaajiyay Yash Jabra waxaan ka hadlaynaa wixii dhacay script ahaan oo laga qoray Dar maxaa sabab xanaaq waxay tahay Sanadol wuxuu dhahay waxaan ku balan Yash Jabra markii aan dabcan Sharuqan uu midida igaliyo oo aan dabcan fal celinta ay dhacdo kadib wuxuu sheegay dabcan
dabcan filimka in la soo gabagabayn doono markii aan dilo laakiin wuxuu yiraahday qaabkan ku balanay iyo shaqadii markaan qabtay kadib waxaa dhacday leeyahay in filimka gadaal looga daray laadarka oo dhintay oo si hadlayo oo dabcan hadallada uu dhahay shaaruqan adeegsanayo oo ku muujinayo sidoo uu jecel yahay Juhi Jawla Kiran iyo inuusan ka quusan karin inay ahayd wax gadaal looga daray sidoo kale waxyaabaha sanadol dhibsada waxaa qayb ka ahayd nin dabcan weligiis aanan tababar gelin oo aan dagaalamin iyo nin filimka ku jira sanadol filimka wuxuu ku jira askari ka tirsan ciidamada badda Hindiya tababar qabo in nin askariga uu qiyaamanin iska caadi ah oo midi uu ku gaadayeen waxyaabo sanadol waxay aad iyo aad u diidanaa laakiin director Yash Jabr ku qasbay ugu dambeyntii uu aqbalo ugu dambeyntii daawadayaasha qamada projectiga daar markii la dhameystiray sanadol ma uusan qanacsaneen sidoo kale tan sanadol wuxuu sheegay filimka markii la dhameystiray in dabcan laga talagelin oo editingkii faafareebka marnaba uusan arkin asigoo superstarka filimka ahay lacagaha ugu badan dabcan uu filim ku sameeyay sadarteed sanadol tiyaatarka daarka uu ku daawaday iyo daarka uu sameeyay waxay ahayd laba aad iyo aad u kala duwan sababtoo ah wuxuu arkay muuqaalo badan oo shaaruqan libinta lagu siiyay oo filimka lagu daray si kastaba ahaatee sanadol wuxuu u hambaliyay shaaruqan qaabka filimka lagu amaanay iyo mudnaanta ku gaaray laakiin wuxuu wacad ku maray in weligiis dambe uusan la shaqeyn doonin ninka lagu magacaabo daawadayaasha qanbad Yash Jabr go'aankii sanadol uu qaatana wuu hirgalay oo Yash Jabr wuxuu geeriyay sanadii 2012 asigoo aanan dib dambe ula shaqeynin sanadol daawadayaasha qiimaha badan sanadol iyo shaaruqan waxay noqdeen laba rival markii laga fiiriyo xifaaltanka shaashada waxay noqotay in nin walba maqaam uu yeeshay taasina waxay keentay marka sanadol inuu ka wacdo shaaruqan la shaqeyntiisa ka hadladiisa maadaama uu noqday superstar weyn shaaruqan sanadol superstar u ahay sidoo kale daawadayaasha badan waxaa dhacday sanadol shaaruqan inay kala fogaadeen in ka badan 13 ilaa 23 sano iraade oo mar dambe ay heshiiyeen waxaana heshiiskooda sabab u ahay sida haatan la ogaaday sanadol walaalkiis Bobby Doll oo labadooda dabcan xilli ay falaadkooda kulmeen Canada u socdeen dabcan shaaruqan meesha ku arkeen kadibna ay wada hadleen Bobby Doll wuxuu ka shaqeeyay labadan inay heshiiyaan daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale waxaa ka hadlay Dramandar oo sanadol aabiis ah sababtii keentay in dabcan filimka daar qoyska reer Doll ay ku xumaadaan Dramandar wuxuu yiraahday reer Doll hadii anaga waxaan ugu leeyahay dad daacad ah oo filimka markay sameeyaan daacadnimo u sameeyaan sidoo kale tan wuxuu sheegay dabcan taageerayaashana kali laabay u jecel yihiin oo ay jecel yihiin mashaariic dadka inay ku raaxaystaan laakiin wuxuu leeyahay wiilkayga filimkii daar waa lagu qiyaamay oo wuxuu leeyahay qiyaanada dhanka shaaruqan ma aysan ahayn ee waxa ka dambeeyay ka dhawaad Yash Jabr oo ugu talagalay inuu dhulka galsho ama uu dilo sumcadda dabcan wiilkiisii sanadol taasina way dhacday markii si loo fiiriyo qaabka warbaahinta meediyahana wuxuu leeyahay Dramandar qayb ay ka qaateen oo ayaga aad iyo aad u bumbuuniyeen wixii dabcan filimka daar ka dhacay marka Dramandar wuxuu leeyahay wiilkayga sanadol waa la qiyaamay ee wuxuu ahaa qof loyalty u ahay daawadayaasha qiimo badan ugu dambeyntii sanadol shaaruqan way iska hilmaameen conflictiga dhaxmar inkastoo sanadol xoogaa yar shaaruqan uu ku dhibsaday in dhanka dabcan uu xigsaday Yash Jabr oo Yash Jabr uu la xirtay halka dabcan sanadol uu noqday nin kaligiis oo la go'doomiyay si kastaba ahaatee marka sanadol filimkii daar wuxuu ka dhaxlay inuu blockbuster yahay laakiin markii la dhaho sharaf iyo maamuus iyo sumcad waxaa qaatay ninka lagu magacaabo shaaruqan oo filimkii dabcan waxyaabo qaar oo extra sanadol raali uusan ka ahayn lagu dara marka ujeedkeen intaas aan soo qaadanay halaasan kaga gudbeynaa bal markaana soo qaadano qodob ku aadan daawadayaasha qiimaha badan atirashada caanka ee Dabika Badukani 3 sano ka soo wareegatay markii ay sameysay filimkii Badmavad kaasi oo noqday blockbuster weyn mashruucan waxaa la sameeyay daawadayaasha qiimaha badan Shahid Kapoor iyo saygeeda hadda ninka lagu magacaabo Ranveer Singh daawadayaasha qiimaha badan intii doobista filimkan ay socotay waxaa dhacday dhankaasi markii la joogay deegaanka Rajasthan goob lagu duubay inay soo wareen dad aad iyo aad u careysan kadibna sameeyeen waxay daqreen director Sanjay Leela Banzalia waxay dhibaato u geysteen Dabika Badukani sidoo kale tan waxay gubeen dhammaan goobta lagu duwaa filimka sababta ugu weyn saas loo sameeyay waxay tahay dabcan gabadha filimka ay ku matalaysan dabcan Dabika Badukani ee lagu magacaabo Rani Padmavati waa gabar boqorad ah oo ku weyn dhankaas Rajasthan oo waxaa loo sheegay Rajasthan gabadhii boqoradoodii ahayd oo ay ku faani jireen taariikhdii hore in Dabika Badukani ay matalayso filimkan lagu ceebeysan doono oo ay dabcan jeclaanayso ama ay dabcan u dhawaanayso nin muslim ah doorkaasna waxaa jiray dabcan Ranveer Singh oo ku matalay ninka lagu magacaabo Qalawuddin Galji sadartay marka reer Rajasthan ma aysan hubsan shakada filimka maadaama wax la duubay ee tahay waxay isleen meeshan waxa lagu qaranayo ku aadan boqoradiin Padmavati oo lagu ceebeysanayo lahayn muslimna jeclaatay ka hortaga saasa Dabika dhibaato loogu geys laakiin Dabika waxay leedahay dhibaatadii soo gaartay ilaa iminka ma aysan uga go'in ka dhawaajisay inkastoo wixii tira filimkaygu uu guuleystay sidoo kale tira sumcad ballaaran ku helay bilada kala duwan ku qaatay haddana waxay leedahay xidigtan daawadayaasha qiimaha badan culays ugu weyn wax iga soo gaaray morally dadkayga Hinduuga anoo Hindu ah inay dhibaato ii geysteen ayagoo aan waxba hubsanin marka Dabika Badukani 3 sano ka hor dhibaatadii ku dhacday wali ma aysan iloobin ugu dambeyntii aan soo qaadano qodob xiiso badan oo ka hadlay lamaanayaasha Bollywood iska doorteen laakiin ugu dambeyntii si tragic ama musiibo ku dhahan u kala tageen waxaan soo qaadan karnaa Sandeedu iyo Madhuri Dixit oo dabcan horaantii 9-maadkii jacayl dhexmaray xilli markaas Sandeedu u baahnaa wehel maadaama xaaskiisii koowaad Rita ay kala tageen sidoo kale tan ninkan drugska iyo daroogada saaxiib u la ahay waxaa garab siisay Madhuri Dixit oo dabcan lamaantiisii noqotay
dood iyo maduri waxay isla sameeyeen aflaan guula lixaad la gaareen sidoo kale tan waxay noqdeen lamaano aad iyo aad loo jecel yahay markii ay sameeyeen saajan iyo sidoo kale filimkii qalniyaag iyo mashaariic kaleeto laakiin nasiib daro daawadayaasha badan waxaa dhacday in maduri dixi sandidu qalbiga ay ka jabisay markii xabsiga uu galay dabiiqadii 1992 dhacdadii dabcan hindi ka dhacday iyo kiiskii ahaa taada oo lagu haysto dad dabcan uu qayb ka ahay ama inuu caawiye niman dabcan dhibaato ka geystay meel mandar ah oo hindu badan qarxiyeen ayaa la sheegay sandidu nimankaas hubkiin uu hay burcad ka ahayn asigana waxaa lagu xukumay 5 sano xarig ah oo 93 oo dabcan xabsi galay kadib waxay sameysay maduri dixi sandidu xiriirka u jirtay waxayna sheegtay nin dabcan burcad ah oo gaangastar ah inaysan nolol la wadaagi karin sandidu qalbiga ka jabay asigana wuxuu go'aan ku gaaray inuu maduri dixi iska iloobo inkastoo dabcan 20 sano kadib la isku keenay oo ay dhacday in dabcan sanadkii hore ama sanadkii 2019 filimkii weena kaalanka ay ka soo wada muuqdaan haddana waxa la lamaanayaashan sida isku jeclaayeen iyo gurkooda dhici lahay in ugu dambeyntii maduri sandeedu garabkiisa ay ka baxday markuu xabsiga galo ilaa dambiile aniga ma guursan kari waxaan soo qaadan karnaa Govinda iyo Neelam labadan Bollywood ka soo wada galeen waxay ku soo wada caan baxeen filimkii Ilzaam iyo mashaariic kale wada sameeyeen waxay noqdeen bartamiis deetamaadkii labadii lagu jeclaay oo dabcan filimada iska sameyn jireen directorada mar isku keenan jireen guulo lixaad leh gaareen laakiin Govinda gabadha Neelam qalbiga ka jabshay sababta wuxuu ka qariyay in uu qabay xaaskiisa Sonita markii uu fanka kusoo biiray marka Govinda gabadha Neelam aad u jeclaad xitaa waxa la islaa way isguursan doonaan laakiin Neelam markii ogaatay Govinda inuu qabo Sonita qalbiga ka jabay Govinda gabadha meel cidla kaga tagay si uu gurkiisa u badbaadsado waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan Nana Patekar iyo Manisha Koirala lamaanayaashan waxaa dhexmara jacayl aad iyo aad u qiimo badan Manisha Koirala waxaa la sheegay Nana Patekar in aad u jeclaad oo xitaa waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan markii ay wada sameynayeen filimkii Qamoshi kadib in aad iyo aad isaga heleen inkastoo filimkan Qamoshi ogaad Nana Patekar uu ku jiray Manisha Koirala aabe sidoo kale uu ku jiray ninka lagu magacaabo Salman Khan haddana mashruucan duubis intay socotay ay aad isku jeclaadeen Nana waxaa la sheegay xilligaas inuu xaasla ahay oo uu jeclaaday Manisha kadib waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan xitaa Nana markuu xaaskiisii kala tageen ama uu waayay in Manisha daawadayaasha qiimaha badan guriga imaan jirtay Nana oo ay dabcan cuntada u karin jirtay hoosh u qaban jirtay ilaa markii dambe waxaa la ogaaday daawadayaasha qiimaha badan Nana inuu soo jeedo inuu guursado gabadha lagu magacaabo Manisha markii dambena si qalbi jab ku dhahan ay isaga tagtay oo Manisha Koirala waxaa ku dhacay markii qalbi jab balaaran oo ku aadan in Nana Patekar noloshiisa u go'day ugu dambeyntii heli waasay waxaan kala soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan ama si gaar loo xusi karaa lamaanayaasha Bollywood sida murugada ku kala tageen oo si gaar loo soo qaatay waxaa kamid ah ama si gaar loo xusay Shahid Kapoor iyo soo kale gabadha lagu magacaabo Kareena Kapoor Khan oo dabcan Shahid Kapoor aad u jeclaa Kareena waxaa la sheegay intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2007 jacayl inuu ka dhaxay laakiin ugu dambeyntii Kareena Kapoor Khan ka tilaabsay Shahid Kapoor oo waxay ka raacday Saif Ali Khan waxayna raacday dabiiqadii 2007 cilaaqaadkii u jirtay Shahid Kapoor sidaa darteed waxaa la sheegay Shahid Kapoor niyad jab balaaran ayuu kala kulmay qaabkii dabcan Kareena qarbiga kaga jabisay laakiin haatan lamaanayaashan way kala maarmeen oo Kareena waxay u dhaxday Saif Ali Khan sidoo kale Shahid Kapoor nolol gaar ah isagana wuxuu qabaa gabadha lagu magacaabo Mira oo waxay u haysaa laba caruur ah Kareena Kapoor dhawaan waxaa la rajaynayaa mar labaad oo inay noqon doonto daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka nolosha tilaashan ku soo qaadano qodobo kala duwan intaasan ku socdana fadlan fiirkeena ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh